soo dhaweynta iyo mahadcelinta kadib waa ku faraxsanahay inaan markaa ku soo laabtay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb iyadoo runtii horumar badan laga sameeyay laga soo bilaabo dib u heshiisiintii la keeno maantay oo ay tahay 14 January oo baarlamaankii labaad ee Galmudug uu noo dhisan yahay runtii guul weyn baa la gaaray horsocod weyn baa la sameeyay waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay guushaas la gaaray waa u mahadcelinaynaa dhammaan qaybaha ka kooban yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan iyadana iraado baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Galmudug hambalyo mudanayaal iyo marweyn xilkiina iyo hawshiina la idin idmaday Allah ku garab galo runtii waxaa la soo maray jid dheer oo cadeynaya in ay reer Galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan dhinacna iska dhigaan wixii dib u dhaca aniguna waxaan u soo diyaar garoobay hor socodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato ku hogaamiyo waliba insha Allah taala intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta mar raba inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan ku sii dheeraado intaasaan mahadcelin u daynayaa mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkaan idin kula wadaago waxaan ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan idin caddeeyo halkaan kugu caddeeyo insha Allah inaan baneeyay xilka wasiirnimada xukuumadda federaalka Soomaaliya istiqaaladeedii waxaan u gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre waxaan ugu mahadcelinayaa markaan ugu mahadceliyo madaxda qaranka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddadii fursadii ay siiyeen uga mahadceliyo muddadii aan soo wada shaqeynay iyo kalsoonidii aan ku soo wada shaqeynay aan uga mahadceliyo waxaan rabaa sidoo kale halkaan inaan uga mahadceliyo golihii wasiirada saaxiibada ahaa ee aan soo wada shaqeynay muddada 3 sano ah waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaan uga mahadceliyo wasaaradda howlaha guud wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha shaqaalaha dhammaan inaan idhaahdo mas'uuliyadiina si wanaagsan insha Allah Allah ku garab galo waxaan rabaa inaan jaaniskaas maadaama aan ku jiro hawl kale aanan ka xayirin ummadda Soomaaliyeed in loogu adeego oo ugu adeego qof kale oo Soomaaliyeed xaq u leh inuu ugu adeego waxaan rabaa mar labaad inaan madaxdii qaranka u mahadceliyo sida wanaagsan habooneed ee aan hawlihii ay ii idmadeen oo ummadda Soomaaliyeed ii idmatay aan u soo wada wadnay inaan ka mahadceliyo aad iyo aad u mahadsantihiin mar raba inaan waqti dheer ka qaado waa la daalan yahay waa muddo la taagnaa waxaan leenahay insha Allah taala doorasho waxaan filaynaa Galmudug sida hawluhu ku socdaan noogu dhacda si xor iyo xalaal ah aan lahayn caqabad laga fogaado wax kasta oo keeni kara inay noo keenaan dib u dhac hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo hadday tahay dhinaca habsami socodka doorashada intaba in laga dheeraado laga fogaado laga dhowrsado wixii keenaya Galmudug wax dhibaalkeeda haba yaraatee